Wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal kale. Maanta waxaan ku faahfaahin doonaa cudurka gaaska ama gastritis-ka loo yaqaano. Waxa sababo calaamadaha uu leeyahay, sababta uu dad badan ugu soo noqnoqdo, sida loo yareeyo ama loo maareeyo. Haddaba, waa maxay cudurkan gaaska ee gastritis-ka? Waa xaalad uu ku dhaco caloosha oo barar inflammation loo yaqaano gudaha caloosha, gaar ahaan xuubka caloosha. Marka xuubkan uu bararo, waxuu keenaa xanuun gaas ah, matag, labolabo, calool fadhi iyo dareen markaasi dhanka caloosha oo aad sare u kaco. Dad badan oo Soomaaliyeed iyo muddooyinka ugu dambeeyay aad uga cabanaya waxaan lagu tilmaamaa cudur soo noqnoqda oo dhibaato joogto ah keeno. Sababaha ugu weyn ee kiciya waxaa ka mid ah cuntooyinka kiciya, basbaaska badan, cuntooyinka shiilan, shaha spiceska ay ku badan yihiin, geedaha shaha, heelka iyo sidoo kale sanjabiisha iyo waxyaabaha kale, iyo shaha madowba leeyahay, cabitaanada gaaska leh, soodhada, coca-colada iyo cabitaanada waayadan dambe dhalintu ay cabaan ee energy drinks. Sidoo kale caadooyinka nolosha ayaa ka mid ah sigaar cabista, cabitaanada qaar, hurdada aan joogtada ahayn, walwalka iyo sidoo kale walbahaarka ama stresska. Waxaa ka mid ah waxyaabaha keena gaaska dawooyinka qaarkood. Dawooyinka xanuun baabi'iyaasha waxay dhaawacayaan xuubka caloosha. Sidoo kale caabuqa bakteeriyada HB-ga loo yaqaano, H. pylori ama Helicobacter pylori loo yaqaano, waa sababta ugu badan ee gaaska uu keeno. Xaaladaha kale caafimaad ee gaaska keena waxaa ka mid ah sonkorowga, kelyaha oo dhibaato ka jirto, caloosha oo aan si caadi ah u shaqayn, iyo arrimo badan. Haddaba, calaamadaha gaaska: xanuun iyo gubasho caloosha ama laabta, laab-dilaac, gaar ahaan meelaha sare ee caloosha, caloosha oo markaasi inta badan fadhida, gaas badan, labolabo, matag, dareen iyo sidoo kale matag dhiig xilliyada qaar, rabitaanka cuntada oo yaraato, ama qofka uu dareemo dhereg marka uu cuntada cuno, waqti yar oo kooban kadib uu dareemo in uu dibirayo. Sababta uu dadka gaar ahaan dadka qaar ugu soo noqnoqdo gaaskan wuxuu soo noqdaa qofka oon si buuxda u raacin talada dhakhtarka ama dawooyinka la soo siiyo oon si wanaagsan u isticmaalin, H. pylori-ga oo aan la dabargoynin, qaabka qofka uu sii wado cunista cuntooyinka kiciya gaaska, basbaaska, shaha geedaha qaar ku jira, cabitaanada gaaska leh, waxyaabo badan, stresska ama walbahaarka iyo niyad jabka oo mararka qaar keena in caloosha si xun ay u shaqayso. Dawooyinka joogtada qofka uu isticmaalo ayaa ka mid ah waxyaabaha gaaska keeno. Haddaba, sidee loo daaweeyaa gaaska? Dawooyinka caafimaad ee lagu daaweeyo waa anti-acid-ka, dawooyinka bakteeriyaha ee loo yaqaan antibiotics-ka, H. pylori-ga inta badan lagula dagaalamo, dawooyinka ilaaliya xuubka caloosha, isbedelada nololeed iyo cuntooyinka, ka fogaanshaha cuntooyinka keena gaaska, cuntooyin fudud oo sahlan in la dheefsado. Sidoo kale, cab biyo kugu filan, iska ilaali in aad biyo badan cabto marka aad cunto cunayso. Qayb qayb u cun cuntada halkii aad hal mar wada cuni lahayd. Jimicsi fudud samee si calooshaadu ay u shaqayso. Maareynta maskaxda iyo walbahaarka, nasashada, hurdo kugu filan oo aad hesho, inaad iska yareyso stresska, inaad ku dadaasho inaad sameyso markaasi waxyaabaha loo yaqaano nasiinada, ducooyinka, salaada, allabariga, socodka joogtada, inaad ka fogaato carada ama xanaaqa iyo niyad jabka ama stresska. Halka kama dambaysta, haddaba gastritis inta badan lagama bogsoodo hal mar, balse waa cudur si joogto ah loo maareeyo. Xalka dhabta wuxuu ku jiraa in qofka si taxaddar leh looga fogaado cuntooyinka iyo caadooyinka keena gaaska, inuu qaato dawooyinka dhakhtarka uu qoro, inuu qofka qaato dawooyinkaasi, inuu qofku qaato nolol caafimaad leh oo ay ku jirto jimicsi, hurdo fiican iyo cunno. Cudurka gaaska waa dhibaato ay dad badan oo Soomaaliyeed ku dhibaatoonayaan. Ma aha cudur halis oo dad badani haddii si fiican loo maareeyo, balse haddii inta badan la dayaco, waxaa sababi kara boog caloosha, dhiigbax, dhibaato kale oo caloosha. Xalka wuxuu ku jiraa ka hortagga iyo maareyn joogto ah. Qofka isbeddel ku sameeyo cuntadiisa iyo noloshiisa, inuu dhakhtar la socdo haddii calaamadahan ay soo noqnoqdaan. Guud ahaanna inta ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkeena. Fadlan subscribe inoo saar, la wadaag asxaabtaada. Qaybta commentiga ee faaladaada inoogu soo qor, gambaleelka furo si aad mar walba u hesho muuqaalada halkan aan kusoo gudbino.